boqolaal arday oo ku jira xarunta agoonta ee magaalada Laascaanood iyo waalidiintooda midka u nool iyo dadka mas'uulka ka ayaa saaka isugu yimid xarunta agoomaha ee Manhal taasoo muddo sanawaad ka shaqeynaysay magaalada Laascaanood. agoontan ayaa waxay isugu jiraan wiilal iyo hablo waalidkoodu siyaabo kala duwan u dhintay. xaruntan ayaa waxaa ka diiwaan gashan agoon aad u badan qaarkoodna aysan awood u heli karaynin inay gacanta ku qabato, halka kuwa kalena ay qayladhaan ugu diraan dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed ee kala jooga daafaha dunida dacaladeeda ku yaala. 175 qoys oo ka mid ah agoonta caruuruhu ay la nool yihiin iyo kuwa waalidkood halka mid u nool yahay ayaa saaka waxaa la guddoonsiiyey timir ay ugu deeqeen xarunta agoomaha ee Manhal magaalada Laascaanood iyo hablo Soomaaliyeed oo jooga wadanka Sacuudi Arabiya oo soo wakiishay mid ka mid ah culimada gobolka Sool, Sheekh Qaadan Wali Cabdi Xuseen. timirtan ayaa waxay ahayd mid si weyn ay halkaasi ugu farxeen inkastoo ay doonayaan caawimo aad u fara badan. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay Sheekh Qaadan Wali Cabdi Xuseen oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay caawinta dadka agoonta ah. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'du. Insha Allah ta'ala walaalayaal marka u horeysa waxaynu soo dardaarmaynaa cabsida Allah subhanahu wa ta'ala. الله سبحانه وتعالى قرآن كما لبضن وكغهل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله وليدتك مؤمنين تاهو مقع إيمانك الله كلها الله إلهي كبغى بغنت وحق ولي هنا يسكسور مننا إلا إذنكم مسلمين مويان. انت كدب ولا الليال سيدا دركتان وحرونتي أغونتا قبل كسول دقمدي Laascaanood marka sidaas agoonta wax loogu qaybinayo dadka muslimiinta ay ka qayb qaateen ayaan ku boorinaynaa dadka muslimiinta ahi khaas ahaan dadka Soomaaliyeed inay si gaara hawsha xil isaga saaraan oo agoomaha ay caawiyaan dadka Soomaaliyeed agoomuhu aad ugu fara badan yihiin oo qaar xabadilaysay iyo qaar badda ku dhintay iyo qaar siyaalo kale u dhintay dadka Soomaaliyeed aad bay agoomuhu ugu badan yihiin. marka iyadoo goboladu si kala badan yihiin haddana dadka Soomaaliyeed agoomaha aad bay hadda ugu tira badan yihiin. insha Allah waxaan markaa rajaynaynaa dadka muslimiinta ka filaynaa iyo dadka Soomaaliyeed khaas ahaanba inay si gaar ah hawsha xil isaga saaraan. waxaan ognahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu amray agoonta wax la siiyo, inuu ku amaanay dadka agoonta wax siiya, inuu Ilaahay haddana maagay kuwa aan agoonta waxba siinay. الله سبحانه وتعالى ضدك أهل الجنة يا أهل الخير كا مركو كهل ويدعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وحي عنتضي بحنيان يجو تشعل عنتضي بيصرافينيان يجو وحي سيمنيان مسكين كا يا أجون كا يكي حدنا بيسينيا سيدوك الله وحي سبحانه وتعالى ما جاي ضدك عن أجون توحسيني ولا تحاضون على طعام المسكين مسكين كي وحبسين ميسان ولا يحضوا على طعام المسكين مساكين تواغونتنا يسوق ليان ولا لي بورين ميسانين وخلصيو. الله سبحانه وتعالى فذلك الذي يدعو اليتيم وكي اغون كاسي باعسن يوم ماغي وفوغيني marka qofka agoonka riixriixayo xaqiisa ka fogeynay ama waxba siinay ama markuu bariya baacinaya uu Ilaahay maagaya subhanahu wa ta'ala. marka sidaas aynu waxaan isxusuusinaynaa agoonta wax la siiyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ana wakaafilu liyatiimi ka haateen aniga iyo qofka agoonka faala qaata asaasan maalinta qiyaamay isku nahay labada farood intay kala dheer yihiin baanu kala dheernahay waa wada soconnaa. waa qof jamaacadayda abu nabigu leeyahay waa qof ila jira waa qof maalinka qiyaamay ila soo xaadirayo ila soconaya qofka agoonka wax siinaya. waxaa kamid ah waxyaalaha rasuulku alayhi salaatu wasalaam qalbiga arrimaha jilciya waxaa kamid ah inuu nabigu leeyahay agoonka u yeero cuntada ha kula cuno madaxiisana masax madaxa u salsalaax حتى هذا وحكي للطاين حتى ماذا حوصل حقونكي حيران هذا قريق ويا عطله كل عنو أرمها قلبي كتلعيه كم يتعقفكني وعكوف كري أقون كان ير أو إلى هي أبيه كقاضي أو أن يسوق مركا عد كفارة قاضي تهين أما وحياة بدن وكي أبها لها وهلي يعني هلينين إن أقون كاير مركا سجار الله دوره الله إلى عليه بيتصيصا وعنو لنا مركا ضدك مسلمين تعقفكي وحكوا عاوية أقومها صوحسية إلهي سبحانه وتعالى إنه عرورتيسا إلهي دوره يريركيسا هدي عرورتيسا أقومه إلهي إنه يقول إلى عليه سبحانه وتعالى
inuu ilaahay agoonnimada kuwiisa ka dhowro baynu ilaahay ka baryaynaa allah subxaanahu wa tacaala inuu sadaqada u siyaadiyo inuu ilaahay hantida u badiyo allah subxaanahu wa tacaala inuu maalkiisa iyo naftiisa iyo reerkiisa barakeeyo inuu ilaahay uga baryaynaa kolley sidaas darteed intaas ayaan taasna kaga gudbi doonaa waxay soo gaadhay raashinkan ama timirtan la bixinayo iftaarka ahi kolley qaar waxaa laga iibiyey akoonka agoonta ama dadka sadaqada agoonta lagu sadaqadaysto akoonkooda lacag ku jirtay qaarna waxaa soo diray gabdho jaaliyadaha sacuudiga jaaliyadda sacuudiga oo gabdho Soomaaliyeed oo u dhashay gobollada waqooyiga ayaa soo diray marka iyaga ayaa ku sadaqadaystay waxa weeye marka kolley anay igu soo qoreen ana u soo gudbiyey marka agoonta marka iyada buuhoodlana qayb baa loo gudbiyey gobollada kale oo saas oo kalena waxbaa loo gudbiyey gobollada waqooyiga ayay gabdhahaasi ahaayeen marka gabdho reer Laascaanoodana ka mid bay ahaayeen marka insha Allah tacaala waxaan ilaahay uga baryayaa iyagana sida ay sadaqada isaga soo ururiyeen ilaahay khayr uu ku abaal mariyo Allah subhanahu wa ta'ala inuu wanaag iyo khayr ugu abaal gudo ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu caruurtooda iyo reerahooda ku dhowro wa hada ma aqulu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa jazakum oo kale halkaasi ka hadlay kuna dheeraaday in loo baahan yahay in la ciidsiyo agoomahani aan dhaqaalaha agoomahan aan iyagu waxba haysanin dadka ay la nool yihiin iyo xaruntan ay gacanta ku hayaan Khaadan Cali Nuur oo kamid ah culimada gobolka ahna wakiilka shirkadda الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بن مهد علينا سبحانه وتعالى كدنا وحن آدو مهد علينا حرونتا أغونتا وأتاغن إني أغونتا أخدميان أغونتا عاويان أغونتا شؤونه دا كورهيان ay u tira kooban yihiin u qoran yihiin xataa agoonta ay hayaan mooye agoonta magaalada joogta kuna fakaraya inay agoonta wax gaarsiiyaan haba yaraateen aad iyo aad u mahadsan yihiin tiifiyada hawshan ka qayb qaato oo baahiyana aad iyo aad ay u mahadsan yihiin runtii anagu waad aragtaan oo hadda timir meel lagu bixinaya wax weyn oo hadda yaala ma jiraan laakiin waxaan rabnaa inaan fariin dirno fariinta aan dirayna timirtaasi dadka soo sadaqadaysay wax weyn bay u dhigantaa qofku markuu saddex xabo ku afuro oo agoon aha ama reerku ku afuro waa wax weyn laakiin miisaanka hadda dhaqaale ay laagtahay waa dareemi karnaa haddii la sii kordhiyo oo dadka wax la sii tarana way ka sii fiican tahay waxa weeye dadkan agoonta darka saane sawirku hayaan waa dadka agoonta ee magaalada jooga in ka badanna waa ay joogtaa waxa weeye marka waxaan rabnaa inaad looga faa'iideeyo dadkan bishan barakaysan ee Ramadaan bishan waa bishii barakada waa bishii dambi dhaafka waa bishii sabirka waa bishii waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadliga dheeraadka galiyay waxaan marka dadka muslimiinta ugu baaqnaa meel kasta ay joogaan annagaan magacyo kala yeelayn oo qabiilo ugu baaqayn oo qolo ugu yeedhayn dadka muslimiinta ah inay soo caawiyaan agoonta Laascaanood markaskeedu ay hayaan iyo kuwa ay ka war hayaan waxaan rabnaa oo hadda sanadka aan rabnaa insha Allah in la ka caawiyo haddaanu nahay xarunta agoonta Laascaanood inaan iidsiino ilaa 500 oo waxa weeye agoon iyo agoomad ah gabdho iyo wiilal isugu jira 500 waxaan rabnaa qofkii waxa ku filan $25 $25 haddii aadan 5 iidsiinayn haddaadan 10 iidsiinayn haddaadan 5 iidsiinayn bal waxa isku dayda hal agoon inaad ka soo iidsiiso oo aad ka bixiso agoonka inaad ka farxiso kabihiisa iyo shaatigiisa iyo surwaalkiisa ama jalbaabkiisa iyo toobkiisa iyo kabaheeda aad u iibiso waxa weeye waxa runtii aad iyo aad ajar weyn farxadda qofkaasi maanta oo dareemayo iidow kula iidayo waa mid aad u weyn waxaan rabnaa ugu baaqana dadka muslimiinta gaar ahaan gobolkan dadka u dhashay deegaanka inay soo iisiyaan agoontan oo aan aabayaashood nooleen oo aabayaashood dhinteen oo u baahan maanta in la caawiyo waxaan runtii u mahad celinayna dhammaan dadka ka qayb qaata agoonta caawiya wax siiya ilaahay ajarkooda ha weyneeyo wanaagooda harseeyo waxa weeye gabadha Faadimo Jaamac Cabdibile oo sanad walba lacag u soo dirtay iidu soo dirtana aad baan ugu mahadinaynaa inay waxa weeye dadaalkeedana kordhiso iyadana waa u mahad celinaynaa sanad walba waa joogto agoontan usayna waa loo idsiiyaa waxa weeye iyana waa dadaasha wixii tabarna waa ay soo dirtaa oo waa ay taageertaa dadka kale muslimiintaana waxaan dad badan muslimiin oo
taageeraha jiro si joogtaha wuxuu siiya iyagana waa u mahadcelinaynaa dhammaantood waxaan rabnaa mashruucaas in la kala qayb qaato in la iidsiiyo hal aqoon $25 soo dir hal aqoon iidsi $100 soo dir 4 aqoon iidsi $1,000 soo dir waxaad iidsiisaa 40 baa iidaya $1,000 40 baa ku iidaya waxa weeye insha Allah taala message-kaas inaad naga aqbashaan ilaahayna idinka aqbalo jannadiisa ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa taala intaasaan oran lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Abdillaahi Ciise oo ka mid ah qurba joogta deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo isagu haatan ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بقى مهله إلهي وحنكم مهدينينا رمضان كوديدي بشي خيرك بشي قرآنك بشي مارتي صدقة إن كلنا حرنت لاسعانود أقونت إن كلنا أيضا ولا لا خيرك تشعلي أسو قدبيين أفر أسو قدبيين أقونت kuwa xarunta ka tirsan iyo kuwa magaalada intaba waxaan ugu ducaynaynaa walaalaha hawsha ka qayb qaata maamulka xarumaha agoonta macallimiinta ardada iyo dhammaanba walaalaha ku hawlan hawsha agoomaha gudo iyo dibadba ilaahay ajarkiisa ilaahay baa ajar idin ballan qaaday weyn ajar weyn aayadihii la aqriyay ilaahay baa idin ballan qaaday intaan kuma filla waa bilow halkaan xarun baa ka dhisan qaybta gabdhaha lagu magacaabo qaybtii wiilasha ku magacaawneedna iyadoo qabiyaabay halkeer noo tahay gidaar ku wareegsan yahay oo aan shaqaynaynin dadka muxsiniinta oo khayrka jecel oo muslimiinta oo walaalaha waxaan ugu baaqaynaa wiilashan in xarunta loo dhiso oo la raaciyo maanta sadaqaadka lagu gelinayo dadka agoomaha la gelinayo in lagu daro in xaruntaana loo dhiso waan soo dhaweynaynaa arrintaa waan idiin soo gudbinaynaa waa dacwadaan idiin soo gudbinayno inaad ajiibtaanna waa codsanaynaa walaalaha ay u suurtogeli karto inay maanta wax la baxaan meeshay ku baxaysana way haysataan agoon baad haysataan meeshay ku bixi lahayd sadaqadu waad haysataan weliba aad u badan ilaahay idin siiyey baa maaragtay idin siyaadinaya ilaahay idin siiyey barwaaqada ayaa idin siyaadinaya ilaahayna siiyey baa noo siyaadinaya waxaan u mahadcelin lahaa una ducayn lahaa dadka ku hawlan quudinta iyo waxbaridda iyo diyaarinta iyo tarbiyaynta agoonta ama waarid ha noqdo ama macallin ha noqdo ama maamul ha noqdo dadka muslimiinta oo hawsha ku hawlan iyo sadaqaadka bixinaya ilaahay gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha xarunta agoomaha ee Almanhal ee magaalada Laascaanood wuxuuna ugu baaqay bulshada qaybaheeda kala duwan inay la soo xiriiraan sidii agoonta ku jirta xaruntaasi loo caawin lahaa boqolaal haween iyo caruur yaryar oo gacmaha haystaan ayaa markii dambe ka dareeray halkaasi iyagoo sita timir ku jirta daasado taasoo ay si weyn ugu farxeen caawinta agoonta ayaa waxay tahay muhiimadda koowaad ee diinta islaamku ay siisay in la gacan qabto agoonka taasoo looga baahan yahay qof kasta oo haysta inuu u soo gargaaro gacanna u fidiyo bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد وحين جوجنا حرنتي أقونت مقالة لاسعانود أنا قلت الله يمعك مامولك حرنت أقونت مقالة وحن ما أنت هلكن مالي خميسة كودي بشهر رمضان وحن ما أنت يسوي يعني أقونتي أنا وحدي كشرني أقونت مقالة بقى أنا قلت قايبيننا تمرتي aan maxay ahayd agoonta xarunta agoontana ku qaybinaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waalidiinta iyo dadka maaragtay ka soo qayb galay mawsimkan maanta aanu ku qaybinayno ifdaarka waxaa nagala soo qayb galay culimadii waaweyneed ee gobolka insha allahu iyaguna kelimadooda odhan doona wajiha ku saabsan waxaanu baaq u diraynaa tirada agoonta aanu halkan ku qaybinay maanta waa 157 qoys oo agoon ayaan ugu qaybinay timirtii ay afrada waxaanu rajaynaynaa dadka muxsiniinta iyo jaaliyadaha dibadda iyo ganacsatada gobolka intuba inay ka qayb qaataan agoonta iyo sidii maaragtay ay uga warhayn lahaayeen ifdaarkooda ciidsiinta agoonta in la ciidsiiyo
sanadkan aad iyo aad baanu u rajaynaynaa inay jaaliyadaha dibaddu ka qayb qaataan ganacsatada gobolku ka qayb qaadato agoonta laga farxiyo agoonta maxay ahayd loo dhaga nuglaado waad ogtihiin culimada ayaa ka warbixin doonta qofka agoon kaalmeeya ilaahay ajarka iyo xasanaadka u yaboohay aad iyo aad baanu idiin soo dhawaynaynaa waxa weeye tiifiyada nagala soo qayb galayna iyagana waa u mahad celinaynaa arrintaas sida volunteerka ah ee maaragtay noola shaqeeya mar kasta aad bay iyaguna maxay ahayd u mahadsan yihiin akoomada agoonta wax loogu soo hagaajinayo waa akoon ayay agoontu ku leedahay manhal maxay amal ayaa akoon uga furan yahay marka xarunta agoonta laascaanood ayaa ku qoran akoonkaas kaas ayaa loogu soo hagaajin doonaa qofkii magaalada gudaheeda jooga ee wax bixinayana akoonkaas ugu hagaajinaya qofkii dibad wax uga soo diraya agoonta oo raba in maaragtay uu ka qayb qaato barnaamijkaas weyn ee muhiimka culimadu inoo sheegtayna wuxuu ku soo hagaajinayaa akoonkaas agoontu iska leedahay amal lacagta waxaa loogu soo qori doonaa insha allahu tacaala xarunta agoonta laascaanood ayaa lagu soo qori doonaa amal baana lagu soo hagaajin doonaa iyo xawaaladaha kaleba iyo salaam bank intaba waana soo gaadhsiin doonaan insha allahu tacaala saas ayaynu isku boorinaynaa wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullah cabdikariin nolol magaalada laascaanood.